الرحمن الرحيم maanta waxaan ka hadlaynaa mowduuc muhiim ah oo ah asalka af Soomaaliga iyo khatarta ka jirta waxaan awood saaraynaa maanta may maadaama qodobka dastuurka qodobka shanaad uu leeyahay af Soomaaliga asalkiisu waxa weeyaan may iyo maxaa tiri halka waxaad ka garan kartaa in asalku uu yahay may maxaa tiri inuu ka farcamay sida dad badan bay sheeganayaan inay Arab yihiin oo Arab ka imaadeen ay dadkay u yimaadeen ay ka barteen af Soomaaligi taas waxay xoojinaysaa in af Soomaaliga maadaama in la wada barto af mayga la barto maadaama qodobka koytobnaad cadaalad iyo sinaan uu sheegayo waa in loo cadaalad faraa oo af Soomaaligi mayga ahaa qofka madaxda madaxweyne ra'iisul wasaare wasiir xildhibaan bahda saxaafadda waxbarashada bangiyada waa inuu qof walba tixgeliyaa garanayo ma ahan isaga kaliya in la fahmi karo maxaa tiri la fahmi karo maadaama maxaa tiriga lagu qoro afka cilmiga lagu qoro oo iska caadi tahay luqaddu markay lahjadaha kala baxaan mid lagu qoray ee caadi tahay laakiin waxa xaq dastuuri ah sida qodobka koytobnaad uu qorayo cadaalad iyo sinaan loo sameeyo oo waxbarashada lagu qasbaa ardadu inay may iyo maxaa tiri ay ku hadlaan suugaanta loogu darayaa waxa kale oo xoojinaysa arrintaas inay hirgasho in la iskaashado maamulka koonfur galbeed wasaaradda warfaafinta iyo bahda waxbarashada la iska kaashado manhajkana lagu daro oo filimada musalsalada raadiyo marka uu baxayo raadiyaha sidaad ogtiin 1960kii wixii ka horeeyay ilaa 5 sano ayaa waqtiga Talyaanigi may iyo maxaa tiri la soo dheelitiri jiray waa in lagu wada hadlaa oo raadiyaha laga sidaaya TV-gan laga sidaaya sidoo kale dhaqankanaga ayaan ku ciyaaray haddii aad af Soomaaliga fahmi wayday af Carabina aad taqaano ama Ingiriis ceeb weeyaan يعني halkaas waxaad cadeynaysaa gumaysiga ayaad caawinaysaa inferiority يعني inaad luqadaadii af Soomaaligiina aadan garanaynin may Carabi iyo ma iyo Swahili iyo meelahaana inaad ku hadasho waa daciifnimo weeyaan hadhowtana marka ay shidaalku markuu soo baxo maadaama gobolka ugu qanisan uu yahay haddaadan aqoonin af may shaqadii inaad heshana dhib bay kugu noqonaysaa waliba madaxdu markay live ku hadlayaan oo qofka muwaadinka uu jooga Tayagalow ama Kuuyo Barow inuu maqla uu doonayo inuu fahmo uu doonayo hadduusan may garanaynin waxa adkaanaysa inuu qofkaasi matalo marka waa in la horumariyaa af Soomaaliga waa in la horumariyaa si qof walba oo ugu hadlo af Soomaaliga nasiib darro malahan meel lagu barto af mayga waxaan ka hadlaa si A to Z dad iska ximaasaysan oo mar meelaha ka hadlay ama Facebook wax yar soo dhigay xa iyo ca iyo meelaha ay ku kala duwan yihiin tusbi iyo tusbax iyo meel waxyaalo yar soo dhigay maahine malahan meel lagu barto af mayga taasina waa khalad annaga dhan aanu ku sameynay waxa dhacday oo taas cadeynaya isfaham daridii aad ogeydeen ninkii wasiirkii sida khaladka ula hadlay xildhibaanka kale waqtigaagana waad iska khasaarisay annagu ma fahmin wasiirka kaligiis muusan ahaan laakiin dad badan ayaa caynkaas ha ku jirto ha garan waayo inkastoo raaligelin ka bixiya garan waayo qiimaha ay leedahay inaad tiraado ma garanayo qodob dastuuri ah oo aan lagu baraarujin qiimaha uu leeyahay anagoo dhanba aan naloo sheegin laakiin haddana waxay cadeynaysaa khatarta ka jirto inaanan isfahmayniba khatartaasi waxay xoojinaysaa markii ceeldheeroodna lagu keenay federaalka annagoo isku diina isku luqada marka halkaas waxay isku luqadii ayay meesh ka saaraysaa waxa leeyahay dadka Soomaalidu isma fahmaan oo waa may iyo maxaa tiri isku diina ayaa ku xigto isku diina haddana shiica iyo waxa naloo keenaya Kristaan haddii mid walba aanu daweynin maanta haddaana isla daweynin oo qof walba uusan qaadan inay waajib diini iyo wadaniyad tahay midnimadana ku xiran inaan wada baranno berina wax kale ayaa imaanaya federaalka oo dadka kala fogeynayay luqadda ayaa naloo soo maraya shiica ayaa imaanaysa Kristaan ayaa imaanaya midnimada jiilka soo socda ayaa khatar gelaysa haddii aanan maanta iska kaashanin oo qof kastoo Soomaali ah uusan afmay oo uusan baranin kala duwanaanshuhu saan sheegay waa wax aad u yar waa xa laba meesha la dhahay lama in la yiraahdo Arab أكل عصبة
usbi tusbax tusbi waa wax aad u yar kala duwanaanshuhu haddii aad la saaxiibto qof maay ku hadlaa ama kan maay ku hadlana maxaa tiri la saaxiibo si yar ayuu ku hirgelin karaa waana waajib diini ah maxay ku noqonaysaa dadkan midka oo muslimiinta oo la kala qaybin rabo luuqad loo soo marayo diin iyo shiice iyo loo soo marayo iyo kristaane waa inaad xoojisaa ood adigu ka mid noqotaa inaad adigu barato dadkana ku dhiirigeliso waa waajib diini ah ee wadaniyad dadka degan Hiiraan ilaa Jubbooyinka sidaan ogahay ama way fahmayaan ama way u fududahay laakiin waxay ku adag tahay gobolada dhexe iyo gobolada waqooyi iyo bari saan sheegayba ingiriiskana waanu baranaa carabigana waanu baranaa amxaariga iyo sawaaxiliga 1972 markii af Soomaaliga la qoray waxa la hormariyay maxaa tiriga kaliya la isku madarin ma ahan in qoraal kale loo sameeyo afku waa mid laakiin waa iyadoo af Soomaaliga oo lagu qorayo in qof walba uu barta ayaan qabaa mana ahan dadka aqoon-yahanada oo sheegayo maygu waa af gooni oo ka duwan iyo kuwaas waa dad la soo adeegsaday oo shayuhu adeegsanayo laakiin aan is ogeen dad muslimiin ay qaybinayaan اجتماع مسلمين اجتماعودنا لما قيبيو لكن خلط كجيرو إن للصحايان قويان واقع أهان واقع حكومة وزارة ورفافينتا مامل قبلات كونفور قلبات وين إسكاشدان سيدي الصحافة بعد وحبرشة بنجيدا دكاس ودان لو دي رجل لها فيلمدا مسلسلات وحيالها كدتكو عيارها مركي للداوانا يو إن qofku ismooga wuxuu isku dayaa energy bixinaya inuu waxan muhiim ka fahmo waxan cusub inuu fahmo hadii aad u hoosgeliso dad ma uga dhigto qofkii uu fahmaya ama qofku la joogo weydiinaya uu qoranaya maadaama dadku hadlay ka badan yihiin 35% meelaha idin soo sheegay meelaha deegaan ay ka mid tahay gobolka Gedo qayb ka mid ah Bay iyo Boqol gebi ahaanba ay deegaan Jubbooyinkana ay deegaan sidoo kale qayb ka mid ah shabeellada hoose ay ugu badan yihiinba mooyaale iyo Mandheerana looga hadlo taasi waxay ku siinaysaa muhiimadda uu afkan leeyahay waan ku celinayaa maamul goboleedka Koonfur Galbeed waajibaad baa ka saaran iyo wasaaradda warfaafinta labadooda waajibaad baa ka saaran sidii afka loo hirgelin lahaa inay dadku ma ahan in project laga dhigo ma qabo wax markii la sheego oo la maqlo dad baa raadsa project bay ka dhigtaan halkaas ku dhamaataa annagu khatartan kama wadno in project laga dhigto laakiin waa in practical la tarjumo filmadii ciyaarihii lagu daro filmadii lagu daro ubadka cusub dadkan fayow dhalinyaradan dadkii hore ma ahan oo siyaasayo isxaqiray kama hadlo dhalinyaradan yar oo qabiilkii waxa aan shaqo ku leen waxay ayagoo in directaan is ogeen af Soomaaliga si fudud ku baranayaan manhajka sheekooyin badan iyo dawlad iska garanaya wax lagu daray maadaama Ingiriisi iyo Carabi ba lagu daro inta waa qasab in afkanagana ay bartaan dadkanagu okay walaalayaal waxaan qabaa in arrintan la hirgeliyo dawladda waxaan dhiilaa nin kasta oo wasiir ah ama madaxweyne ah ama ra'iisul wasaare ah shaqaalaha dawladda kuwa hoose kuwa dhexe dhammaan maadaama ay dadka wada matalo waa in aad la isugu dayaa laguna dhaxdara markaad la hadlaysid afmayga lagu dhaxdara arrintan waa muhiim shaqaalaha dawladda ciidamada iyo madaxdaba waa in aad isugu dayaan juhdiga dadka way ka duwan yihiin in ay cadaalad jirto oo sinaan jirto waxa lagu garanayaa inaad 35% dad ku hadlo oo la hadlaysid ama aad u adeegaysid oo matalaysid inaad luqadii afgurigii aad baran waydo lahjadii goonida inaad baran waydo waxay noqonaysaa khalad intaas ayaan ku soo koobayaa muhiimaddu waxa weeyaan waxaan ugu yeerayaa qof kasta oo damiir leh oo doonaya inaan iska kaashano arrintan fadlan hayla soo xiriiro aniga dhabayga taanoon projectiga ahaan shisheeye uusan igu caawinaynin ayaa waxaan doonaynaa inaan aqoontanada iyo iskaashiganaga aan ku hirgelino arrintan waan ogahay dad badan oo wanaagsan inay jiraan laakiin arrinta ayaan laga dhigin project iyo NGO damiirkanaga iyo masiirkanaga ayaan laga dhigin waana in aan arrinta aad isku daynaa dhibaatooyin badan baa dalkan la soo waajahay haddana waxa ugu daran luqadanadii ayaa si dabargo'aysa oo aniguba aan ka mid ahay adeegsigeeda meelo badan oo cilmi aan ku soo baranay aanu laanahay haddana haddii aan annaga dhexdanadii isfahmi wayno
oo istixgelin wayno damaaciga shisheeyo federaalka noo keenay nagu kala qaybinayo inay maay iyo maxaa tiri aan isfahmeenin markii madax kale ay timaadaan haddana ay yiraahdaan ma fahmeeno shacabkii inta loo tago la yiraahdo madaxweynaha wuxuu ku hadlayaa afkaas idinkan ama wasiirka maaliyadda waxa uu ku hadlaa weydin matalaya waxa si fudud lagu qancinayaa in la kala qaybiyo meeshii maamul goboleed la noqon lahaa in aan hadhowtana kala go'no 35% hadday damacdo inay go'dana khatarteeda waad garanaysaa arrinta aan leeyahay waxaan ogahay arrimo yar oo la wado ayaan ogahay dadka la adeegsanayo waa dad wanaagsan laakiin ayaga waxa u daran inta yar ay helayaan kuwa kalena maba ogaba oo waxa la galiyay qabiil iyo ximaasad kala la galiyay khaladkana adiga ayaa iska leh waa inuu qof walba fahmaa haddii kale waxa la yoon ma nafadaayana unina ma fadaano kuwan mana doonayaan annaguna ma doonayno macnaheedu waxa weeyaan kuwan mana doonayaan annaguna ma doon yani afkii maadan baran maadan qiimeen qofkii walaalka oo Soomaaliga oo asalka oo u timid hada tixgelin waaydo waa dhibaato weyn damiirka iyo islaamnimada iyo wadaniyada waxaan oo dhanba waxayna amrayaan inaan af maayga wali lahjada maayga khaladka waa ka xumay lahjada maayga inaan horumarino afka naga hooyana nala baro nasiib daro waanu ilownin nala baro aadna loo horumariyo in la qoro laguna faantamo afka la qorayo waayo anu kuma faantamayo marka qaar waxaan dhex gelinayaa wixii si naloogu waday ayaa la qabsanay maxaad u malaynaysaa kuwa iga dambeeya waxay noqonayaan wallahi kuma faantamayo laana luqad kale carabi iyo ingiriisi inaad soo dhex geliso wixii baan isu ka qabanaynay si kedsa marka hadda bal aan tan yara badbaadina markaan mid noqonnana aan luqadanadii kala badbaadsanno waxaan idin leeyahay guul iyo gobonnimo waa professor Shaafici oo idinka codsanaya inaan u ololeeno qof walba oo Soomaali ah inuu lahjada maayga barto maxaa tirina u barto lana ogaada af maaygu inuu yahay asalkii Soomaali dadkii halka loogu yimid wixii aanu ka baranay waana lahjada kaliya oo biyuur ah saafi ah uusan dhex galin luqadahan shisheeye ee gumaysiga sida waqooyiba ama koonfurba xaggana ingiriis u dhaxgalay xaggana uu talyaanigu u dhaxgalay lahjada maaygu wali waa saafi waa asala wayna ka ballaaran tahay maxaa tiriga saas darteed waxa muhiim ah inaanu baranno dhiirigelino waxaadna la saaxiibi kartaa qof kale oo maayga si fiican u yaqaano haddaad isku daydana qof kasta wuu baran karaa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.